أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Ibre Solution kusoo dhawaada janaalkeena maanta insha Allah hadduu alla ee raalli ka noqdo sida caada ahayd waxaan idin duubi doonaa imtixaankii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare khaasatan dugsiga sare fasalka form 4 ee la galay sana dugsiyeedkii 2020-2021 maadada Soomaaliga ayaa iskala shaqeyn doona insha Allah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Qaybta koowaad waxay ahayd gobogeli 20 darajo nabi saarneed. Sheekadana la soo qaatay oo ah Xaaji Aadan Axmed Xasan oo ku magac dheer Xaaji Aadan Aqalooc. Waa akhrineynaa waa boobsiineynaa insha Allah la socod wanaagsan. Marka hore qofku ardaygu wuxuu ku khasban yahay inuu akhriyo sheekada si uu su'aalaha ugu shaqeeyo oo si degan u akhriyo. Xaaji Aadan Axmed Xasan oo ku magac dheer Aqalooc waxa uu ku dhashay miyiga magaalada Cerigabo goob loo yaqaano Haldhagan ee dadka Mirishi qiyaas ahaan wuxuu dhashtay sanadka markuu ahaa 1871 wuxuuna ku dhashtay meesha lagu magacaabo Haldhagan waxa ay magaalada Cerigabo dhanka waqooyi bari ka xigtaa ilaa 50 kiiloomitir. Abwaanka waxa uu noolaa ku dhawaad qarni iyo rubac. Allah u naxariistee waxa uu geeriyooday 5 Luulyo sanadka markuu ahaa 1986 wuxuuna ku geeriyooday magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag isaga oo markaa qiyaastii jiray 115 jir isagoo markaasi ahaa calashan qiyaastii 115 jir oo ah. Xaaji Aadan Axmed waxa uu ka dhashay qoys reer guuraa ahaa. Dhanka aabaha waxa uu ahaa ilmihii sagaalaad ee aabihii uu dhalo. Dhanka hooyadana waxa uu ahaa curudkii hooyada ama curudkii bahdooda leh. Xaaji Aadan Axmed waxaa hooyadii la odhan jiray Daawo Dhunkaal Dhagayare. Aabihiina waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Axmed waxa uu hooyadii la odhan jiray aabihii waxa uu ahaa nin aftahan ah oo golo joog leh. Axmed Xasan oo ah aabaha dhalay abwaanka waxaa lagu yaqiinay laynta shabeellada iyo libaaxyada dadqaadka ah. Xaaji Aadan Axmed xilliga yaraantii ma jeclayn in uu xoolo raaco laakiin waxa uu jeclaa in uu dadka waaweyn ag joogo oo warkooda iyo wacaalkooda dhuuxo si uu cara adag wax badan kaga ogaado. Abwaanka intii uu yaraa waxa uu soo maray dhibaatooyin badan laakiin waxa uu ahaa nin hoodo iyo ayaan leh. Markasta Allah ayaa ka samata bixin jiray dhibta. Abwaanka waxa uu ahaa nin Allah siiyay filweyni dheer isla kolkaana inta uu noolaa waxa uu la kulmay turunturooyin badan oo ay ka mid ahaayeen qafaalasho, xadhig sanado badan ah, sidoo kale dibad joognimo iyo wixii la mid ah. Hase ahaatee dhammaan hadimooyinkaas waa uu ka badbaaday. Xaaji Aadan Axmed Aqalooc isaga oo 4 jir ah oo la jooga aabihii iyo hooyadii baa libaax qaatay. Kolkii libaaxii la tagay meel cidla ciirsila ah buu isaga tagay oo ma cunin 2 maalmood kadib markii uu halkaas yeelay oo dhiig baxay waxaa helay gabadh la joogtay adhi ayaa heshay. Gabadh meesha ku suubsanaysa heshay gabadhii caano siisay isaga oo jidiin dhuubmay. Reerkii gabadha dhalay waxa ay wiilkii yaraa hayeen oo baxnaaniyeen 3 bilood oo jeegolo ay baxnaaniyeen. Intaas kadib waxa uu reerkii wiilka helay intaa kadib waxa ay reerkii wiilka helay baafiyeen ay ka baafiyeen wiilkii yaraa
shir beelaha isugu yimaadaan. Halkaas baa Xaaji Aadan Axmed Afqalo codeyrkoodii dib loogu soo celiyey, isaga oo laga quustay. Abwaanka waxa uu afka ku qalloocday habeenkii libaaxu qaatay. Su'aasha koowaad: Xaaji Aadan waxa uu dhashay. Jawaabtayda waxay noqonaysaa xarafka E oo ah 1871. Su'aasha labaad: Xaaji Aadan waxa uu ka dhashay qoys. Jawaabtu waxay noqonaysaa Jiin oo ah reer guuraa ah. Su'aasha saddexaad: Xaaji Aadan waxa uu ahaa ilmihii koowaad ee dhanka hooyada. Su'aasha afraad: Abwaan Xaaji Aadan waxaa lagu yaqiinay laynta. Casharkan waan kusoo marnay, waa soo aqrinay, oo waxaa waaye Xaaji Aadan aabihiis oo ahaa midka lagu yaqiinay laynta libaaxa. Xaaji Aadan Afqalo aabihiis waxaa lagu yaqiinay, aabihiis oo lagu magacaabi jiray Axmed waxaa lagu yaqiinay. Jawaabtu waxay noqonaysaa shabeelka iyo libaaxa oo Jiin ah. Haddii oo si kale u fiirino oo dhahno calashaan maadaama oo abwaan Xaaji Aadan Afqalo waxa lagu yaqiinay meesha aan ku qornayna, haddii sidaadna waa lagu tagi karaa saas leeyahay. Haddii micnaha oo la raacayo, haddii oo qalad oo madbici uusan jirin oo saan loogu talagalay waa laga tagaa micnaha, maadaama uusan jawaabta isku jirin. Ka soco lixaad u gudub. Xaaji Aadan xilliga uu caruurta ahaa ma jeclayn inuu raaco. Jawaabtu waxay noqonaysaa 7 xoolo raaco. Inuu xoolo raaco ma jeclayn. Su'aasha lixaad: Abwaanka inta uu yaraa waxa uu soo maray. Jawaabtu waxay noqonaysaa Jiin oo ah dhibaatooyin badan. Su'aasha toddobaad: Xaaji Aadan isaga oo 4 jir ah baa waxaa qaatay. Jawaabtu waxay noqonaysaa Jiin oo ah libaax. Xaaji Aadan waxaa helay oo caano siiyey. Jawaabtu waxay noqonaysaa Ta oo ah gabadh adhi la joogta. Su'aasha sagaalaad: Xaaji Aadan aabihii waxa uu ahaa. Jawaabtu waxay noqonaysaa Xaaji Aadan aabihiisa wuxuu ahaa. Jawaabtu waxay noqonaysaa E oo ah afgarooc. Su'aasha waxa uu soo gudubtaa Xaaji Aadan aabihii waa sheegnay. Su'aasha 10aad: Xaaji Aadan hooyadiis waxaa la odhan jiray. Jawaabtu waxay noqonaysaa Ba oo ah dahabo dhuunkaal. Qaybta labaad waxaa waaye suugaan. Waxaa saaran 35 dhibcood. Dhamaystir murtida. Tan ugu horeysa waxaa waaye geed wadajir gacmo wadajir bay wax ku gooyaan bisa ka maqan. Gacmo wadajir bay wax ku gooyaan laga rabaa. Su'aasha labaad oo meelaha banaan buuxiga murtida ku qoran. Geed waa madal. Waxaa ka maqan meesha inta joogta. Inta joogta waa marag. Geed waa madal. Inta joogta waa marag. Su'aasha saddexaad: geed weyn gudin yar baa goysa. Geed weyn gudin yar baa goysa. Su'aasha afraad: kur ama kor waa yeel wada indho. Waa wada indho kaliya ka maqan. Waa ku qoran tahay wada indha ka maqan. Kur ama kor waa yeel waa wada indho. Su'aasha shanaad oo murtida dhamaystirka ah waxaa waaye luday ismoodmoodaysa. Laabtay ka xiriirta. Luday ismoodmoodaysa. Laabtay ka xiriirta. Kaliya waxaa ka maqan laabtay bisa ka maqan. Qaybta kale oo gudubna ka jawaab weydiimahan waxaa saaran 7 dhibcood saarneed. Tan koowaad: sheeg abwaankii alifay riwaayadda Shabeel Naagood.
waxaa alifay jawaabteedu waxay noqonaysaa abwaan xasan sheekh muumin aa alifay. Su-aasha labaad, haysta dhaqan waxa uu abwaan xasan ganey ku sheegay magacyo roobka leeyahay. Sheeg 3 ka mid ah magacyadaasi. Waxaa ka mid ah magacyada uu roobka leeyahay abwaanka uu ku sheegay heesta waxay ahaayeen dhool, dirir iyo mayay. Waxay kala ahaayeen magacyada uu abwaanka uu ku sheegay dhool iyo dirir iyo mayay. Sidoo kale aan gudubno qaybta kale, u kala saar murti iyo maahmaah. Waxaa saaran 15 dhibic. Tan ugu horeyso, xidid wadayaal. Xidid wadayaal waa xil wadayaal. Waa maahmaah. Waa xidid wadayaal waa xil wadayaal maahmaah waaye. Barasho horteed ha inacin murti waaye. Haye 3, xidid xeeradii way isu furan tahay. Iyaduna waa murti. Ciirtaada dhamaa ceebtaada yaqaan. Oo midaana waa murti. Laakiin xogaa shaki ayaa ku jira, laakiin murti inay tahay badina. Tan 5aad, diriskaaga waa ilaalo aan lagu dirsan. Waa maahmaah oo aad loo yaqaano waaye. Qaybta kale u gudubno oo naxwaha 25 dhibic saaran. Ka soo saar magacyada gaarka ah ee ku jira weedhaan 15 dhibic saaran. Su-aasha koowaad, ardayda akhriska ku wanaagsan waxaa ka mid ah hodan. Iska easy waa aad u fududahay micnaha. Kaliya waxaa lagu dhahaa waxaa ka soo saartaa magac gaar ah ka soo saar. Hadda magac gaarka jumladda nagu jiro waa maxay? Arday miya mise waxa way hodan waaye. Magac gaarka oo jumladda nagu jiro waa hodan. Hodana magac gaar ah. Tusaalaha labaad, Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya. Magac gaarka tusaalaha nagu jiro maxaa waaye? Magaalo miya mise Soomaali miya aye Muqdisho miya. Magac gaarka nagu jiro maxaa waaye? Waa Muqdisho. Magac gaar ah waaye. Sidoo kale Aadan Cadde waa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka. Oo magaca gaarka ku jira tusaalahan aadan miya madaxweynaha miya dalka miya. Aadan Cadde miya madaxweynaha miya dalka miya. Magaca gaarka nagu jiro maxaa waaye? Waa Aadan Cadde. Waa sax. Su-aasha 4aad, maxkamaddu way xidhan tahay. Oo waa maxay magaca gaarka nagu jiro tusaalahan? Waxaa inoogu jira magaca gaarka tusaalahan ku jiro waa maxkamaddu. Su-aasha 5aad, Axmed waa macallin wanaagsan. Magaca gaarka tusaalahan nagu jiro maxaa waaye? Macallin miya mise Axmed waa? Waa Axmed waa magaca gaarka tusaalaha ku jiro. Qaybta kale keen erayada. Erayadan eray la micno ah 10 darajo saaran. Qaansaroobaad eray la micno ah waa jeegaan. Tabantaabo eray la micno ah taageero. Milgo eray la micno ah xurmo. Tukulush eray la micno ah dabagaale ama urays. Dabagaale. Su-aasha 5aad oo erayada dhabo waxaa la micno ah wadiiqo ama jid ama wado sa u taqaanid. Qaybta ugu dambeyso curis faa'iidada nabadda. Qoraal 10 dhibcood. Qoraalka 10 dhibcood saaran. Eray bixinta waxaa saaran 5 dhibcood. Astaamaha iyo calaamadaha waxaa saaran 5 dhibcood. Waxaa lagu dhahay ka qor mowduuc ka mid ah curis gaaban ugu yaraan 500 eray lehna dhammaan astaamaha qoraalka. Waxaana u hadashaa xuquuqda waalidka
iyo barbaarinta carruurta. Waxaan u maleynayaa midaas inay ardayda ay u sahlan tahay ayna qori karaan. Insha Allah haddii aad wax badan ka faa'iido channelka subscribe saar una share garee asxaabtaada. Daawashadaadana waa ku mahadsantahay. Mahadsanidin.